الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر والصبح، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. إلهي baan ku xamdinaynaa mudaakaradaas iyo kulanka diineed. ilaahay baana soo waafajiyey oo naga soo qeyb geliyey. nabigeenu sala allahu calayhi wasalam waxa uu noo sheegay in xadiis alqudsi ilaahay uu lahaa: wajabat maxabatii lilmutaxaabiina fiya walilmutajaalisiina fiya walilmutazaawiriina fiya. ilaahay baa le xadiis alqudsi, kuwa aniga daraadday isku jecel waxa u waajibaa ilaahay yidhi kalgacaylkayga, kuwa aniga dartay u wada fadhiisanayana kalgacaylkayga ayaa u waajibay, kuwa aniga dartay isku ziyaaranaya isku buuqanayana kalgacaylkayga ayaa u waajibay baa ilaahay yidhi. ilaahay dartii baan isku soo ziyaaranay, alla dartii baan u wada fadhiisanay, ilaahay dartii baan isku jecelnahay. taasaa wax weyn aan ka helaynaa, marka ajar weyn baan ka helaynaa. man axaba lilaah wa abqada lilaah wa acطaa lilaah wa manaca lilaah faqad istakmala aliimaan. rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, qofka maaragtanay haddii uu wax jeclaan, hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaada, hadduu cid nacayana alla dartii u naca, hadduu cid wax siina alla dartii wax u siiya, hadduu cid wax ka mancisana alla dartii uga mancista buu nebigu yidhi, qofkaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. marka kulankeennan iyo ziyaaraadkan aan isa ziyaaranayno waxay daliil u tahay, waa calaamatul iimaan bay daliil u tahay walaalayaal. saxaabi la odhan jiray qubaysa radia allaahu canhu ayaa magaalada madiine yimiday. oday da-weyn buu ahaa. markaabaa nebigeenu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam: yaa qubaysa maa jaa bika, maxaa ku keenay buu ka yidhi, maxaad la timiday? markaa odaygiibaa hadlo wuxuu yidhi: laqad kabira sinii waraqa cadmii, ji'tu litucallimunii mima yanfacunii allahu bihi. yaa rasuul allah, da-daydii way weynaatay, lafahaygiina way jilceen oo haddeetoola waa iska weynaaday buu yidhi, waxaanan u imida magaalada madiina si aad ii barto cilmi ilaahay igu intifaaco, ilaahay waa maaragtan igu anfaco. markaabaa nebigeenu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam: dhagax iyo dhir, bannaan iyo buur ma soo marin ilaa khalqiga joogay intuba ilaahay bay dembi dhaaf ku weydiinaya buu rasuulku ku yidhi. marka dad badan waxaa laga yaabaa magaaladay ka yimaadeen xaafadaheega, jamaacadooyinna waxay ka yimaadeen qaryadaha iyo tuulooyinka inoo dhow dhow, qaar boosaasay ka yimaadeen, annakuna hargeysa iyo jabuuti iyo muqdishoaan niiga imanay. ilaahay dartii baan u wada soconnaa. xadiidkaa nebigu odayga qubayso uu sheegay, qof walooba ishordhigo, dhagax iyo dhir iyo bannaan iyo buur, intaa meeshaad soo martayba khalqiga ilaahay abuuray, jamaadaadka joogay iyo khalqiguba waxay ilaahay ku weydiinayaan dembi dhaaf ba ilaahay ku weydiinayaan. marka kulankan waa kulan aada u qiimo badan weeyaan. laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas, waman yafcal dalika ibtiqaa'a mardaati illaah fasawfa nuutiihi ajran cadiima baa ilaahay yidhi caza wajalla. kulamo badan baa adduunka jira oo dadku ay kulmayaan. kulanadaasi baa ilaahay yidhi midna khayr kuma sheegine, waxa ilaahay khayrka uu ku ammaanay waa kulanka maaragtane wanaagga la isfarayo, ama ummadda la islaaxinayo, ama maaragtane la isfarayo in sadaqad la bixiyo. qofka maaragtane intaa uu ilaahay ka soo reebay kulannada ilaahay dartii u qabta baa ilaahay leeyahay, ee ilaahay radihiisa u qabta. hadduu sadaqad bixinayo ilaahay dartii u bixiya, haddii dad uu islaaxinayo ilaahay dartii u islaaxiyo, haddii dadka wanaagga ay isfarayaanna wanaagga ilaahay dartii u faraan. qofka sidaa ilaahay dartii u yeela
waxa ilaahay siinaya ajar weyn iyo mashqaayad weyn baa ilaahay siinaya marka ziyaaradaas ilaahay dartii aan isku soo ziyaaranay iyo kulankeena aan magaalada dhexdeeda iyo qaarkeena tuulooyinka ay ka yimaadeen waa ilaahay dartii baan u wada imanay kaan wax ka doonayna waa ilaahay caza wajalla kaan raali gelinayna waa ilaahay tabaaraka wa tacaala kaan ugu dhowaanaynaa waa ilaahay man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishay axabu ilaya mima aftaradtu calayh wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibahu baa ilaahay yidhi ilaahay waxaad ugu dhowaanaysaa waa maxay waa faraa'idda ilaahay iyo sunanta nebiga sala allahu calayhi wasalam intaa qofku markuu la yimaado ilaahay buu ugu dhowaanayaa leanna markuu addoonku waajibaadka ilaahay uu ku waajib yeelay uu la yimaado uu nebiga sunnadiisiina raaco calayhi salaatu wassalaam qofkaasi wuxuu noqonayaa markaa weli ilaahay weli awliyada ilaahay ka mid ah qofka la collaytama baa ilaahay leeyahay aniguna waxaan ogeysiinayaa kaa inaan isagana dagaal ku qaadayo maxaa weli lagu noqdaa marka inaad weli ilaahay noqotaa maxaa u sababa shayga ugu horeeya la doonay dadku inay fahmaan weli ilaahay inaad noqotaa waxa u sababa aliimaanu billahi caza wajalla inaad ilaahay rumaysaa alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun man hum aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquuna baa ilaahay yidhi weliga ilaahay sifada u horreysee laga doonay waa maxay aliimaan billah caza wajalla ilaahay rumee aayaadka ilaahay rumee aakhirada rumee malaa'igta rumee rususha ilaahay soo diray rumee kutubta samaawiga laynoo soo dejiya rumee aakhira inay jirta rumee khayr iyo shar waxaa adduunyada ka dhacaya in ilaahay caza wajalla isagu uu qadaray oo maqaadiir ay tahayna maaragtaanay rumee wixii ilaahay adduunyadan uu qadaray maana wax kale ma dhacayaan wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibahu addoonku kama zuula baa ilaahay yidhi xadiisalqudsiga inuu la yimaado sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu nebi maxamed ku daydo ilaa aan jeclaada baa ilaahay yidhi haddaan jeclaadana maxaan u noqonayaa haddaan jeclaada baa ilaahay yidhi waxaan u noqonayaa maqalkuu wax ku maqlaayey aragguu wax ku arkaayey gacantuu wax ku qabanayey iyo lugtuu ku soconaayey ayaan u noqonayaa hadduu waxay weydiistana waan siin baa ilaahay yidhi oo ducadiisu mustajaabay noqonaysaa hadduu magangeli ay weydiistana cidduu iga magan galo waa ka magan gelin baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala ku salliya rasuulka allahuma salli wasallim calaa sayidina muxamed dhaqdhaqaaqa han joojino han fadhiisanno insha allah han dhegaysanno dadka dusha joogana ha fadhiistaan meesha daawasho ma ahayn waa maqalka unbaa muhiima aragtidu wax muhiima male annagu soomaali sidiina dhagadhaadheer un baa nahay maryowleydii meelaha iska soo socotay baa nin dad cadcadoo dibadda niiga yimid ma nihin soo sidaa ma aha waliba jamaacadka tabliiqa waxaa lagu yaqaanaa ayagaa dadka u tegaba ayagaa magaalooyinka maro oo miigaan marnaayo oo tuulooyinkaan iska seexanaayo marka annaga hana doondoonin bay annagaa ku doondoonaynaba ma la fahmay iska fadhiista insha allah fadhiista insha allah hasmaqalle maqalka fiicana fadhiista maqalkii ilaahay baa kule addoonka haddaan jeclaado waxaan u noqonayaa maqalku wax ku maqlaayay egtaadaasi wax ilaahay ka cadhaysiiya maqalkeeda laga ilaalin araggu wax ku arkaayey ishaadu waxay noqonaysaa in ilaahay ilaalshanayo wax ilaahay raalli ka yahay mooyaane wax ilaahay ka cadhaysiinaya lagu tusini maayaba gacantuu wax ku qabanayey gacantaada waxay noqonaysaa gacan ilaahay ilaalshanayo oo wax ilaahay kaa xarimay gacantaada ku taaban mayside waa la dhowr oo laga ilaalin lugtuu ku soconayay baan u noqon waxay ka dhigan tahay lugtaada meel ilaahay kaga cadhoodo inaad u marto waxay noqonaysaa mustaxiil lugtaada waxay noqonaysaa lug loo adeegsado ilaahay daacaddiisa waxaad noqonaysaa aalad ilaahay adeegsanaya markaa dhegtaadii khayr maahina shar maqli mayso ishaadii wax khayr oo ilaahay kuu dhoweeye mooyaane waxun arki mayso gacantaadii wax ilaahay ka cadhaysiiya ku qabani maysid lugtaadii meel xun oo ilaahay uu ka cadhoodo ku mari maysid hadduu i weydiistana baa ilaahay yidhi waan siin hadduu i magan galana waan magan gelin baa ilaahay yidhi idaa sa'alta fas'al illaah soo mahayn waida istacanta fastacin billaah hadduu i weydiisto waan siin
yaa sidaa kule ilaahay baa kule xadiis alqudsi laakiin ku dadaal sidaad u noqon lahayd mid ilaahay u dhow dadku maanta zamankan waxay ku dadaalaan sida makhluuqa ugu dhowaan lahaayeen makhluuq waa zero marka adigii zero baa tahay makhluuqa kalena waa zero 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 uge waa imisa 5 0 uge kun zero uge wada zero makhluuq waa zero zerogu wuxuu qiimo yeeshaa markuu hal number u raaco number markuu raaco hal haddii la raaciyo hal zero wuxuu noqonayaa 10 buu noqonayaa 2 zero hal haddii la raaciyo 100 buu noqonayaa 3 zero haddii hal lagu daro 1000 buu noqonayaa sida zerogu eberku uu qiimo u lahayn keligii number haddii uu ku biiro qiimo yeeshaa makhluuqu keligii qiimo ma leh makhluuqu waxa uu qiimo ku yeelanayaa waa markuu ilaaha khaaliqa cilaaqo la yeesho ma fahamteen الله ينفهم شيء مخلوق قيمة ملأ لذلك وحال يقول يا حي حداد ويديسن إلهي ويديسو حداد معاونة وبحث إلهي معاونة ويديسو لا تستعين بغير الله إلهي غيرك كالنها ويديسن عثمان بن مطعون رضي الله عنه صحابي قاس مكمر كيل الجوغي بداية الرسالة بداية الدعوة waxa uu ku jira magangaliyada Waliid bin Mughira odayga la oran jiray Waliid bin Mughira wa Khalid abihi wa anaga quraanka aad loogu caayay utul ba'da dhalika az-zanin an kana dha malin wa banin idha tutla alayhi ayatuna qala asatir al-awwalin fi surati al-qalam wa kilaha ka warma taariikhdiisa taariikhda xun ee laga reebay ha ninkaasi Usman bin Mad'un saxaabigan jaliilka وعلى الوليد بن المغيرة وقعن كلها لأن وليد بن المغيرة أيام قريش انتو سدحتها يجيبوا يدي قريش وحادوا قاعدة أنك عثمان بن مطعون ما كان قال يده يدو كجراي وعدوا دوان كرتها ما جربوا مركز عثمان بن مطعون مقالة مكوس كدح سعودة مرة اللي مركو مقالة مكة ودح مرة يا وصعدوا وحوا أركا يا ماشي أصل لقوا عذابا يا أبو ذر حلقة أصل بلال بن الرباح لقوا عذابا يو شيخ ما صور جسانا شريف شيخ حقنا كسو قلنا هي حق قبل ده صوت ترتيبيه صور يجي ها غفرة نبي يكون صليا هل قاسوا عنه بلال بواركي هل كان لقوا عذاب أيو خباب بواركي هل كان لقوا عذاب أيو سجيب أمريكا فكرو يدي رجي صاحب هذا اسكو درجة هيدينا ماشنا لقوا عذاب يا أديكونا نين قال أو مشركة أو إلهي غيرك عابدية magangeliyadii saad magaalada maka ku dhex socotaa buu yiri wallahi arrinkaas diintaada naqsi bay ku tahay buu naqs hay ku tahay nuqsaan bay ku tahay buu safi aanu soo jeestade markaasuu ayuu u yeeray markaa wuxuu yiri Waliid bin Mughira uu tago wuxuu yiri Waliid bin Mughira magangeliyadaadii anigu waan ka baxay igala noqo buu ka yiri markaas yiri maxaa kugu dhacay miyaa lagu dhibay ma Quraysh baa ku dhibtay ii sheeg may cidna ima dhibin magangeliyadaadu way fiicanto ninkaad adigu magangeliye aad siisaa cid sidaa u eegaysa ma jirtee laakiin aniga ayaa ku qancay inaan makhluuq waliba gaala aan magangeliye weydiisane waxaan doonayaa oo raalli ku noqday ilaahay magangeliyadiisa raalli ku noqday buu igala noqo buu taad adigu markaas yiri de waa hagaag laakiin aniga banaan maaha magangeliyada waxaan kugu dhiibay meel fagaara ah oo Quraysh oo dhan ay fadhida ayaan ka istaagoon idhi ninkaasi maanta laga bilaaba magangeliyada ku jiraaya ii dhaafo igu ogaada meeshii istaago ii soo celi buu ka yidhi marka hadhow adiga ku taala wixii lagu sameeyo marka sidii buu sameeyay صلوا على الحبيب سيدي بو مركا سميه وليد بن المغيرة يا عثمان بن مطعون رضي الله عنه صحابي الجليل كاها ويسا صور راعين مال قريش اي فددو او فقاراء ايها مركا عثمان بن مطعون باسركعي مركا سوري ولا الله يو وليد بن المغيرة مغنقليدي سؤال بأوفي عنتهي نكو مغنقلي اوسيانا عد سدا واغي سمجرتي انيغا مغنقليدي سو عليي كون الرالين نقضي
ilaahay mooyaane cid kale inaan magangelyo weydiisan baan ku raalli noqdee waanu celiyey ogaada buuhi maanta laga bilaaba markaasuu Waliid bnu Mugiirana uu ka daba hadlo waad ogtihiin buuhi hadda laga bilaabaa ninka magangelyadaydii anu waa ka qaatay buuhi waxaad ka yeelaysaan ka yeela Qurayshay majliskii buu Cusmaan bnu Madcuun ka dhaqaaqay Allah raalli ka noqdee nin shaacir oo halkaa Kacbada agteeda fadhiyo la dhageysanayo bariga shaacirka ayaa aad loo dhageysan jiray ninka shaacirka oo aad loo dhageysanayo ayaa ma aragtaanay ayuu markaa isdul taago sidaa buu shicirkii gabaygii buu dhageystay صلوا على الحبيب شاعرك مركا وحوس لما بيجو هذا العجيب وكهالله وحول ألا وكل شيء ما خلى الله باطل بوي ألا انتبهوا براروغا وعلي وحي إلهي كسوها رأونا وباطل ويان عثمان بن مطعون بايري صدقت الرنبات شاكتين بوكيدي مركا شاعرك اللبيد بس داو ايغان دادكو دانا عثمان بن مطعون بس داو ايغان مجمع عن شعر كدغيسنا يا هل قف ومؤمنكم مجري ووضا مشركين مركاسو يري وكل نعيم لا محالة زائل بودي نعمت كستو جرتنا وإني شكي كما تاقني بودي إني زولي سي بابا عيسو مركاسو كودي كذبت بين بات شكتيبو كيدي نعيم أهل الجنة لا يزول أهل الجنة النعيم كوغو مزولي سي بودي ودائم بو كيدي وليد نكي لبيد سداسو ايغي وحر قريشي مجالستينا غورما نيمانكا شعرada loogu bahdili jiray buu maanta agtiina waa laygu bahdilay ninkana wuxuu ahaa shaacir jaziirat al-arab oo dhan laga yaqaano shicirkiisa aad looga dambeeyo maanta wuxuu yiri beejkan niitiriyay inuu soo diyaariyay meesha inaan ku gabiyo waaba lay masaxo waa lay bahdilay buu zero ba laygu soo celiyay goorma halka gaadhan in shucarada agtiina sida laygu bahdilo mid baa hadloo yiri ha dhageysan kani waa mid waalano diinteediina uu ka baxo diinta Muhammad buu raacay ha dhageysana wuxuu ku yiri ma aragtaan noo wad markaas diin kamaan bixine diintii islaamkaan galay buu diin islaam diintii xaniifka toosnayda ilaahay khalqiga ugu tala galay ee nabi Muhammad uu noola yimid baa raacay oo rumeeyay ama ininku dhagax iyo qoriyo iyo mushrikiin baatiin oo ilaah qeyrkii baad caabudaan buu ka yiri kii gaalka ahaa ee mushrikii baa soo kaco ishu ku dhiftay Cusmaan bn Madcuun halka buu ku dhiftay isha markuu ku dhiftaa la yiri ishii kala biyo sii daysi كلجي بقى واحد مؤمن ماشي نحتاجن مجمع هلكا جوجو دن iyo waxa kacbada ag joogo wada mushrikiin Waliid bnu Mugiira markaa meesha taagnaayo arkayay oo ku qoslay oo yimid wuxuu ku yiri Uthmaanow ishaada nabarka lagu dhiftay qani bay ka ahayd way ka deeqtoonayd laakiin magangelyadayda markaad ka baxday durba waata dhibaatadii ku soo gaadhay arag buu ka yiri markaas yiri Aba Abd Shams dhageysan buu ku yiri maybuudi isha lilmayna see biyuhu ka socdaan waxay loo yeesama taqaana maya ii sheeg waxay leedahay sida walaashay ishii kale sida loo cawray ilaahay dartii loogu cawray anigana maxaa nabarka uu ilaahay dartii igu soo gaadhi waayay loo yeesaabu ka yiri yaxtasibuun diinta dhibaatada ku soo gaadha ilaahay dartii bay ka ahayd iyagoo ajar ilaahay bay kaga doonayeen إلهي غير كينا ما ركتاني هبا يراتي قرمدي قرقار أصحاب النبي محمد كما يدين هذا بريوتا ميان إلهي ببريين وإلهي بالله بري هذا كلمة وبهدان إلهي بكلمة سنين هذا عبسين نقطنا وادمان إسا صحابة النبي قال لكم عبسيني بل سيدا قالوا نلشا أجع الشهي أي أصحاب النبي محمد إني دين تقول نتانو جعلايان خالد بن الوليد رضي الله عنه رسائل كيس وقرنتهي مركو مدحدا رستم فرس الروم ورقدها اقريو waxaa ku oran jiray soo islaama hada islaamnimada qaadan weydana jiziyada noo ogolaado jiziyadkeena hada jiziyada diidaan bi oran jiro jiziyada bixin weydaan waxa soo kicinaya rag baa ila joogoon magaalada ku haya Madiina ragaaba nagu soo kicinaya dhimashada u jecel ilaahay dartii inay u dhintaan u jecel sida inagu khamriga iyo zinada iyo nolosha aad u jeceshiin ayaa iyagu dhimashada u jecel yihiin buu oran jiray
ودمانيسا صحابة النبي قال لهم ما عبسينين مخلوق بقى وحيانا لقى ما دادعين وحا لقى دادعيي إلهي بقى وحني حيا يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف حديث كاسي وحويان ومن قواعد الإسلام ويان وتيرش الدين الإسلام أي كنت أنتهي هذا كان النبي وحا وكبل بينه وشيغو ابن عباس رضي الله عنهما وويل يرى مركي جوجين في حجة الوداع في يوم عرفة يكو تاغن وابن عباس النبي قداتي سأو فرديو أي نبي كويري يا غلام ويل كي يرو إلهي إلالي أمر كيسا أذيقنا إلهي باكو إلالي نبو كويري كلمات بانكو برايا كلمات قاسوا معي إلهي إلالي إلهي إلالي معنيه قوى معي إلهي أمر كيسا إلالي واجباتك إلهي كو فرد يلا إلالي وحي إلهي كو حلالي إلالي وحلاش راع وحي إلهي كا حرمين كديرو ونفت هذا كإلالي وحي معروف دين الإسلام كفرت لك هالي وحي منكر دين الإسلام كو أي كربتنا كربتهم وكجوكسو أحكامتي شريعة إلهي إلالي أديك أنا مركا إلهي باكو إلالينا يا وحلالي الله باكو إلالينا احفظ الله تجده تجاهك أبو نبي كويري هل اللي هل كادوك عذاب إلهي باتك يا ليسان معنوه محي مالو إلهي تبارك وتعالى كاغم مغنيا هي مجرتو هذا سماد أو بحد إلهي ومعاقا هذا بدها قش إلهي ومعاقا هذا بورها دحمرس إلهي ومعاقا هذا برق سعوت إلهي ومعاقا هذا المجتمع دحجوت إلهي ومعاقا هذا كليقاته إلهي ومعاقا نبي الله يونس عليه السلام بدبال لغو توري يبرن بأفك أوك القاضي على الكلام بكل عي هل كاكو إلالية كو حافظة كسو صار واكما الله ويا تبارك وتعالى إلها كو حفظي يونس عليه السلام في بطن الحوت في 3 ظلمات با إلهي كو إلالية إبراهيم الخليل عليه السلام في وسط النار ضبه العي دحدي سال لغو إلالية موسى عليه السلام في قصر فرعون با إلهي صدس إلهي كو إلالية محمد عليه الصلاة والسلام في غار حراب إلهي جل وعلا وكو إلالية عيسى ابن مريم عليه السلام في وسط الحواريين سقوا فرديا وأنا لقاك عن ماشا أي إلهي إلالية رجي الرادين ينتهي سوقلين أي نبي عيسى قروا المال عليه ماشو جو وأنا أركي يا نبي عيسى ونحن فرديا حواريين ما نتابع كرام ما أنا أركي كريان احفظ الله إلهي أمر كيس إلالي أذيك إلهي باكو إلالين بل اسكدا عدو اسكدا أذيك جركاغا إلهي كو إلالين نين صالحين تكمدا أو سلفكي كمدا بقول إيه زياد عمري سوغاري تنا مع عدانين بالليلي إلينا كما سودعين لباتن جر حوغي سيبو ليهي مركاسا لغو يري دادو بقولك waa dhaaftay laakiin quwadaadi ma dhaqaaqina maxaad ku sameeysan noo sheeg maxaa si cuntaay oo ku qarsoon noo sheeg baa lagu yiri markaas wax aniga ii qarsooni ma jiree ilaahay amarkiisii baan ilaaliyay ilaahay quwadaydii buu ilaaliyay buu anigana maqalkaygii baan ilaaliyo maqalka ilaahay kumaan caasin dadna quwadii maqalka ilaahay baa ii joojiyay aragaygii ilaahay kumaan caasin quwadii aragga ilaahay baa ii joojiyay gacmahayga ilaahay kumaan caasin quwadii xooga ilaahay baa ii joojiyay raganimadayda ilaahay kumaan caasin ilaahay baa raganimadayda ii ilaaliyay waqtigayga ilaahay kumaan caasin waqtigayga ilaahay baa ii ilaaliyay maanta dhalinyarada muslimiinta meel kasta ay joogaan fiiriya markii macsiyadii zinadii fisqigii beentii iyo maaragtaane fasaadkii markuu batay 20 jirkeennii baa la moodayaa inuu 60 jir yahay maanta macaasidu way ku boosboosin daacaduna qofka bini aadanka way dhistaa إلهي مركان أمر كيس إلهي يبو يدي أنا جنا أود يدي قوة يدي إلهي بأي إلهي يسوع يبو احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك هل اللي هل كادوك عاد إلهي واكو أركيا واكو مغليا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار ما يكون من نجوى من 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أبو القاسم جنيد البغدادي رحمة الله عليه أيا أورنجري والله وهو معكم أينما كنتم آيداس وهو معكم أينما كنتم مع الأنبياء والأولياء بالنصر والكلاء ومع عامة المسلمين بالحفظ بورنجري والمعية. إلهي عز وجل أنبيادنا marka lagu leeyahay anbiyada ilaahay macooga uu yahay isaga ilaahay nabiyada ilaalinaya isaga ilaahay nabiyadiisa ilaalinaya. Muuse calayhi salaam fircoon baa loo diray. fircoon maalin walba markuu makri iyo shir marka uu u sameeyo shirqool nabi Muuse markuu shirqool u sameeyo wuxuu leeyahay dharuni aqtulu Muuse waliyad'u rabbah inni akhafu an yubaddila diinakum aw an yudhira fil ardi al-fasad. dharuni aqtul Muuse buu leeyahay idaaya Muuse handilay waxaa ka baqayaa diintiina inuu naga bedelo arladana inuu naga fasaadiya ka baqayaaye idaaya buu leeyahay Muuse handile mana dili karaya nabi Muuse ayaa ilaalinaya ilaahay baa ilaalinaya Muuse ilaahay baa ilaaliya. la aj'alannaka min al-mazzunin buu keenay waa labada uu fircoon nabi Muuse ugu hanjabay waan ku xiri waana ku dili mana dilin mana xirin waayo nabiyada cisma la socota cisma rabbaniya wallahu ya'simuka min an-nas. nabiyada cisma la socoto ilaahay baa ilaalinaya iska daa bini aadan xaariya kaadila oo kibray nabiyada inuu jirkooga waxyeeleeyay bal nabiyada waxa jirkooga laga ilaaliyay culimadu yiraahdaan diqsigu xataa nabiga jirkiisa ma dul fadhiisan kareen baa la yiri nabiga jirkiisa laga ilaaliyay diqsi inuu kor fadhiisto xaariya kaadila mutakabbira wax ma yeeli kara ما يلكر انت سو جرب قريش اي نبي محمد مكر ملكتي واكو دعيويد اي نبي محمد وحي الله وجيستان يوم الهجره مالتي نبينا هجرون عليه الصلاه والسلام افرتن دليرو او قريشيد ايا midkiiba saafintoo loo soo dhiibay jilib kasto qurayshad baan dhaliyaro xooga laga soo qaado la yiri hal boqol hal mar kaliya ayaa la yiri hal loo kulmiyo maaragtani Muhammad لأن ربني هاشم ما قريش ودم بلا دجال الله بكريه ربني عبد المطلب مايه وحي كرر على نقولي دونانين الدية إسكا قاتانه بقول كي أيكو صوت أجنو عنده قصدا أكله هيا أيا نبي جبريل يمد عليه السلام أولي ركعوا ماركتانه دحمر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. عندها ويكلا هيان بالليدي لكن السجا ما قبنا يا أرجود وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون واحد مودعين كوجدان لكن كم أرك يا بنبي قال له يدي وايو أرك هذيك كوجو أرك لهاين ولا جا حجابي بنا هذا كإيشيسو إنه ملكو أركتو أمرك إلى هاي بأوبا هنتهاي مقل كاجا دكت هذا إنه ضحكون مقاش أمرك إلى هاي بمقل كوبا هنياي لقت هذا إنه تكسعته لقت أمرك إلى هاي بأوبا هنتهاي قعنت هذا إن هذا حقوق أمرك إلهي بأوبا هنتهي إن هذا شو أمرك إلهي بأوبا هنتهي بني هذا كأود وكسعد وكش قينيو وأود إلهي تبارك وتعالى أودك لما هو عد كسعته وإلهي أود صدوبا هنتهي بقول كوجيو أركا يبو النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لأن الراتي النبي جاي قران قريش ودم بالك هلا دري محمد عليه الصلاة والسلام نولل أما جيرين لبدا نيجا متكو كينا لبا بقولو حالادو جيلا يا الله سينا يا دين النبي قواك قدك أيوب قال يسقي أبي بكر كركي سي نبي اسكرتا جين قريشي راتي نبي قو هلكا دوشو قدك دوشي سو كودا مادي أبي بكر الصديق يا نبي قدك يكون جيران أبو بكر نبي قو أبغى عليه الصلاة والسلام صديق نفتي سو نبي كفي دينا يا نفتي سو أبغى ما النبي قو أبغى يا مركز لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا هدي متكود ولا بدي سقوا مضاد هوس دايمون لها وين أركي لها مركب النبي كوير ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما بحضن ملايين أبو بكر ولا بإلهي صدحينا قلت كإنا قلنا وأسباب لكن أيانا لجرة أيانا لا سعودة أيانا إلى علينا
أيام معنا وفهم أسبابت الشريعة الإسلام كم ديريسو الشريعة الإسلام كم أسبابت وأوجشها أسبابتنا والله بو مدوامد مباح وبنان من نوامد عن بنانين قد كون نبي محمد وكجرا ودومنا يا هذا أبي بكر بقول يا محاذو ملاين لبوا إلهي صدحين أيو قرآن كان واقع إلهي كل شيء لها لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا مرجن بنبي قال له يري إلهي بمعك وأركاية مرجن إلهي باكو أركاية إلهي باكو لجرع إلهي بمعنا أبو النبي يقول أبو بكر سيد مرجون إلهي بمعنا أسباب حكتك الدكان هذا قوله يقين تادو وين هاتا الدكان كو أنيقو إما أرزاقيا إلهي بأرزاقيا أدو جيرانو داوة استعمالايا داوة ده يقين سن يقين تادو وين نقطة داوة ما ها وحا عافماتك كان يسي داوة عافماتك إلهي بصور حمرينايا أدو أمنو بيا عبايا أسليهم بيهنا هراتك بإينا يه بل وين ترى هذا أمرك إلهي ماشي كجرا هراتك بإينا يه عنتدى العنيسو قاجد ما بإينا يسي أمرك إلهي ماشي كجرا قاجد بإينا يه لكن إيشين وحي أركيسا أسبابته إيشين وقبانيسا لكن قدرة مسببك إيشين وما أركيسو قدرة مسببك المسبب وإلهي مؤمن كمركا وحا لقا دونيا أسبابته مركا أركتد هالرومين بقولكي بقول وحاتر هذا أسبابته وحنو استعمالينا امتثالا لأمر الله بانو استعمالينا لكن قدرة إلهي بأدوية كشغينيسا قدرة إلهينا لما أركو سيدا جرك الله أركايو الروح ذا الله أركي روح ذا ما لا أركا لكن قفك استوحوا لي قفك بن آدم كم حاجة عنتي سلوكتي سمد حلنا دقاجنا يا وعقول لي والروح ذا كجرت الروح ذا ما لا أركي يا أركي كربا ذا ما أركي نقالة وملحدة مشرك أي أرضي بكدا دعينا يبالي أرضي بكدا دعينا يي وحي اللي أركو باجرة وحال أركين وحجرة معها أرضي ذا نسكولك ودي قلينا إنا ير لما مسلمين كجرت لما مسلمين إنت قالوا وضا قالوا مرقاسو أرضي دي تصاو حيولي سبورة دا ما درقيسان هاوا نرقينا إذا سبورة دو ويجرتا بويلي مروحة دا ما وجدان هاوا وجدنا إذا ويجرتا قالك ما وجدان هاوا وجدنا إذا قالك واجرا سنبك عبودي بصودق ماشي كان ما وجدان ووجدنا كان واجرا مرقاسو الله ما وجدان ما أركينا ما وجدنا إذا وحجرا ما هبولي شيطان أرضي مسلمة قاعدة تاجي أرضي معلم سؤال مو كويدية ما ويدية أرضي ده سؤال ها ويدي سؤال شعبك وقص عتاي ما كحناقي ما كما حناقي يا كالي يقول والديمقراطية كالي وفضك والديمقراطية كالي مرقاسو يركب سؤال وحود معلم كينا عقلي سما وجدان ما يوم جدنا إذا نكن وحجر ما هو مجنون مرفوع القلم ويقول هذا الروح دي سما وجدان روحنا ما وجدان كجرتا ما وجدنا إذا روحنا كم جرتا واميد بولس كجرتا كنيكن ويا بينك عقل واقبابول عقل والله عقل ما لهيد بالبول أرضي دي بكتر عقل جاك نتص ونتابسي أرضي دي قال هذا حين أيا وحي إليه مرة واحدة وانا تستونا تابسيسي سنة بقى عبودي سوانا تستونا تابسيسي موبيل كوانا تستونا تابسيسي لكن وحنا تستا عقل جاك نتص ونتابسي ما تصي كرام يركي أنا مسلم كواسكو داوانا يقصر أو كلام بحل بدو دي هركاش عقلي والله ما عقلي كو قرينا الله ده عقلي وانيga inagu hortaagan waaniga dharka ku soo xidhay waaniga isku soo hagaajiyay saaka waaniga casharka inagu dhigaya waaniga dariiqa ku maraya waxa ii fiican waxa ii xun waaniga ku kala garanaya dadka qaraabadeed iyo kuwa qaraabadeeda aan ahayn waxa ku kala garanaya waa caqligaygi xaaskaygi iyo walaashi waxa ku kala garanaya waa caqligaygi hooyaday iyo taan hooyaday ahayn waxa lagu kala gartaa waa caqligi marka ardaygii muslimkaaga cad taagoo yiri caqligaaga adoo aanan arkin ayaad aaminsantahay ilaaha caqligaaga ku siiyay ee bani aadamka abuuray ee cirka abuuray ee dhulka abuuray ee makhluuqa abuuray seedu garan weyday buu yiri seedu garan weyday
ood aayaadka ilaahay ugu garan weyda aayaadkaas caqligaaga maad arkin laakiin calaamaadka caqliga lagu garto waa maxay qofka caqliga qaba waxaa lagu gartaa hooyadii iyo islaanta kale u kala yaqaanaa xaaskiisii iyo walaashii buu kala yaqaanaa sadiiqiisii iyo cadowgiisii u kala yaqaanaa meesha xun iyo meesha fiican buu kala yaqaanaa qofka caqli iyo garaad aan lahayn walaashii xaaskiisa ma kala yaqaano waa la xidhxidhaayo meel baa lagu xidhxidhaa caqliga calaamaadkiisa ayaad ku rumaysa inaad leedahe maxaad u garani weyday haddaba cirkan iyo dhulkan baddan buurahan khalqigan cadceedan dayaxan habeenka maalinta dhimashada dhalashada wa min aayaatihi alleylu wannahaaru waashamsu waalqamar laa tasjuduu lilshamsi walaa lilqamar wasjuduu lilahi aladii khalaqahunna in kuntum iyaahu tacbuduun wa min aayaatihi alleylu waannahaar وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وآية لهم الفلك وآية لهم الليل نسلخ منه النهار آياتها كونك إلهي أودي سلقو قرنا يو انتوت قرتو محاد إلهي أقرن ويدي بكولي لكي معلم كاها هالكي بكو إسلامي ضد بدن هالكي بكو إسلامي وإلمير إنير وآبهي هو يدي أي إلهي النبي قبرين oo gurigooga diin lagu soo baray oo guriga xalaqatul bayt loogu soo qabanayay ayaa jawaabta ilaahay soo dhaxmariyo nin gaala ku soo aruuniyay marka ruuxda la arkaya laakiin jirka ruuxda lama arkaayo looma jeedo laakiin jirka la arkaya sidaas oo kale asbaabta ay noo muuqata laakiin qudradda ilaahay ma muuqato idan marka ilaahay uu ku leeyahay ana ku ilaalin markuu nabi maxamed ku leeyahay amarka ilaahay ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalin ilaahay jalla wa ala sidoo doonuu ilaahay kugu ilaalin meeshuu doonaa ilaahay kugu ilaalin tabaaraka wa tacaala meeshuu doono qaadir ala kulli shay جماعة أصحاب الطالوت في أواخر سورة البقرة إلى هيك قور من قوم كاس بقر كودي بيكو قصبين إن يوبحان مارك تاني قتال أو جالوت يعين جيس أي دجال كو قادان لكن ما هين وح أمر كوي مدي يكاد ضلبي ده أمر كيكو أتكيستين بيدواي هي إن ماريا مركز السعودين معركدي ماشي كدعي دوت دقالك قال إسلام دحمريا أنت آنا لقارن أيا وحا إلهي كو ابتلاي أون وي أومن سديتن كنا علماء واكو شاكان عدد كوغا سديتن كنا مركاسي اوي مادن أمير كودي كو يرادين وان أومن هاي أنا كو سدنا دقال مقالي كرينو واسولو غيني دول كان مرينا والصحراء baadkii biyihii waa naga dhammaadeen harraad halkii u dambaysa ayaa taagannahay waxaan u baahannahay biyo ilaahay noo weydii markaa buu ku yidhi maaragtaana iska fadhiya iska socda buu yidhi iska socda ma socon karayno markaasuu haddaba ku yidhi dhegaysta inna allaha mubtaliikum binahar ilaahay wuxuu nagu ikhtibaari doonaa tog biyo cad tog biyo xareeda oo durdura ayaa hortiina ka soo bixi doona buu yidhi biyaha qofka isagu cabbaa haddee toolakaasi waa iga hadhay buuhi ogaada jamaacadeeda ka mid maaha ka mar uun darsade ee hunguriga ku qoyana waa jamaacadayda buu yidhi way raacaya ka biyaha aanan dhadhamin ee iska dhaafe ka tallaabana ee hore uga sii socdana kaasina waa jamaacadayda buu yidhi waa saddex qaybood waa looga digay cidda biyaha cabtahee ee ma raaci karaysa khalaas عدة ماركتاني بيها مرنا دمسنا وجماعة ديدا عدة بيها عنان دمين إسكت دافتنا وجماعة ديدا ويسعدين صلوا على الحبيب بيه بأي مدي مرة اللي مركب بيه صباحين أيا جماعة دور رسول حيدا بيها أنك بينيا وأصلا ما أنت إنك أنت نبضنا أنا من سنة هاي أسبابتنا أنا من سنة هاي أسبابتا داودا عافماتك كانيسة داودي والعونا يا daaweyntii way badanaysaa dawadii way badanaysaa dhakhtaradii way badanayaan hosbitaaladii way badanayaan laakiin bukaankii muu yaraanaya mise uu biiraya
dadkii bukay ma yaraadeen mise way sii bateen waa sii badanayaan halkanaa dhakhtar la geyn waxba waa loo waayey muqdishaa loo qaadi waxba waa loo waayey turkiyaa la geyn waxba waa loo waayey jarmalka ii qaada meel kasti gee leanna waxaan aad ku socotoona waa asbaab caafimaadka ka bixiya waa ilaahay asbaab jamaacaddii asbaabta aaminsanayd biyihii markay heleen way cabbeen leanna in yar markay tallaabsadaanba oonka ku ziyaada haddana way soo noqdaan way cabbaan way cabbaan way cabbaan markay yidhahdaan harraadkii waa inaga ba'ay ee 3-4 tallaabo ay qaadaanna oonka ku ziyaada haddana way cabbaan way cabbaan way cabbaan maxaad u malayn in maanta oo dhan biyo cabbaaya calooshiisa say noqonaysaa caloosha intaa wada leekaatay halkii bay ku dhinteen baa la yidhi asxaabu lasbaab baa la yidhaha kuwaas asxaabu leanna asbaabtay cilaaqa la yeesheen sunnada cilaaqa lama yeelan ilaahay cilaaqa lama yeelan jamaacaddii labaad iyaku waxay idhahdeen biyahan oonka ma bi'inayaan oonka ilaahay baa noo keenay ilaahay harraadka inuu naga qaadana biyaha ka u baahan maahee qudrad waxau ilaahay leeyahay facaalo ah oo shaqaynaysa oo bilaa asbaab uu addoonku ilaahay wax la doono uu ku siin karee ina mariyo naga tallaabiya way ka tallaabeen kuwaas jamaacaddii saddexaad waxay yidhaahdeen hal mar keliya inaan darsanno oon hunguriga ku qoynaa lanoo idmee hal mar keliya waa ijaaza way kabadeen way socdeen waxaa la yidhi 80,000 4,000 oo keliya ayaa ka badbaaday meeqaa imtixaankii ku dhacday waar meeqaa imtixaankii ku dhacday 76,000 meeqaa badbaaday 4,000 oo keliya waa sida mufasiriinta qaar ay qoraan 4,000 markay gaadheen meeshii dagaalku ka dhici doono macrakadii qowmu jaaluut waxaa hor taagan 200,000 oo kun oo nin oo hubaysan 4,000 iyo muqaabil 200,000 oo kun saasay yidhahdeen qoladii biyaha soo kabatay ee hal mar keliya biyaha soo kabatay markay arkeen walamaa barazuu lijaaluuta wa junuudihi qaaluu laa taaqata lana alyawma bijaaluuta wa junuudihi waa qoladii biyaha soo kabatay ayakuna halkaabay ku hareenoo waxay yidhaahdeen ciidanka intan la eg annaku u jilib dhigi kari mayna bay yidhahdeen jamaacaddee hadhe markaa jamaacaddii biyaha aanan soo kaban waxay yidhaahdeen kam min fi'atin qaliilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله جماعدي يريد وحيد هذا وقال ذا لين يسمر والبين إله إلا كل ميان لمشا كبغ مايان عدو كبغ مايان هذا دقالك كنت انتانا والشهداء هديك لنا قرقارك إلهي بميسك أصارنا إلهي بأقرقارايا laanna qofka muslimku ma khasaaraya dhinac walba hadduu diinta u dhintana waa shahiid weeyaan oo darajad buu qaadanayaa haddii uu guusha helana ilaahay baa u gargaaray qoladii yaraydee mar walba rumaysnayd inay dhimashadu xaq tahay garanaysa waxay yidhaahdeen kam min fi'atin qaliilatin imisa koox yari koox tiro badan ilaahay idankiisa kaga guulaysatay ilaahay idankii wallaahu maca asaabiriin ilaahayna saabiriintu macooda yahay qolada hadalkaa tidhi baa la yidhi 313 bay ahaayeenoo nebiyullaahi daa'uud baa ku jiray calayhi salaam deedna dagaalkii baa bilaabmay ilaahay tabaaraka wa tacaala guushii buu siiyey muslimiintii guusha ayaa haya ilaahay baa haya tabaaraka wa tacaala qisaddaa waxaan uga jeednaa asbaabta aan arkayno qudradda ilaahay baa ku dhex jirta ayuha almu'min qudradda ilaahay rumeeyo cilaaqa la yeelo qudradda ilaahay cilaaqa la yeelo ilaahay amarkiisa ilaali haddaad salaada ilaaliso oo waajibaadka ilaahay ku faray ilaaliso oo diinta dadaalkayga aad ilaalisid oo diintaada aad ka shaqaysid oo diintaada aad baratid oo diinta ku dhaqankayga aad ku dadaashid oo ilaahay diintiisa aad dhaqaalahaaga waqtigaaga caqligaaga cimrigaaga aad ku bixisid adigana ilaahay baa ku ilaalin fallaahu khayru xaafidan wa huwa arxamu arraaximiin khayru xaafid waa ilaahay khayru raasiqiina waa ilaahay خير الناصرين وإلهي خير الغافرين وإلهي خير الوارثين وإلهي مركز إلهي بريسو
كدو عيسى ماركتاني أسماء إلهي جل وعلا يا خير الناصرين ويا خير الحافظين ويا خير الوارثين ويا خير الرازقين ويا خير الغافرين إلهي تبارك وتعالى كدو عيسى أسماء دي سواوين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلهي مقعيدي سواوين تهي مرقى إلهي مقعيسى كدو عيسى مر والبا إلهي الرحمة دي سنة كقوسا منه إجازة فصح أسلا جوقنا إن شاء الله الله أكبر كي حالك نور على النور إن شاء الله صلوا على الحبيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله ينودم بدافع ولا ليال إلهي تبارك وتعالى دينتن وحي نوسي دينتن والرحمة دينتن والنبت قليو نحريست أسأل الله دونا يا إنا فهمنا ونفهمنا دينة الإسلام كونها الرحمة إلهي نسيه إلهي وأسماء ديسا وحكمد الرحمن الرحيم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بإلهي يري قرآن كأنه والرحمة قل بفضل الله وبرحمته باليري قرآن كي والرحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إلهي بقرآن كأنه وشيغي وقرآن كي والرحمة والنبي محمد عليه الصلاة والسلام عالم كودنب الرحمة ويهي أسماء إلهينا وحاكمده مقع أقوه الرأي الرحمن بالله الرئيسي الرحمن ورحمتي وسعت كل شيء مركان حريست إلهي عز وجل كقوسا منه وإن الإلهي أصور نقلنا إلهي أتوبت كينا ذاتك مسلمين تنسد أتوبت كيني لهايين وإن أقوينا وإن دعوة ومحي ذاتك آيا الله أقوينا إن توبت كينان ذاتك آيا الله أقوينا إن إلهي أصور نقدان ذاتك آيا الله أقوينا حرق إلهي إن قبصدان ذاتك آيا الله أقوينا يا ماركتاني إن مساجد عمران لذلك كل كينا اجتماعنا مقصود كيسوا محي سيدين نكون إلهي أن أقوحنا ذاتك إلهي أن أقوحنا ويا وحي إلهي كسوها رأوا باطل ذاتك إلهي إلي كحد مانا وحق ويان ذاتك إلهي غير كيني كحد مانا وباطل ويان نبي قلنا كسر لي توجهوا أنا قاعد أسوأ إيه بس حاجة محل في رنسان يا محل في رنسان ما حد رافع ما في ريايته أنا يسوى فيري أنا أنهي فيري ما شاء الله قولوا ما شاء الله تبارك الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حرق إلهي وضع قبصة بالله كلن كينا اجتماعنا محال مذاكرة المقصود كي يقول يحي سيداني نكون إلهي حرير في عن الله لنا ضدكن إلهي حرير في عن الله يا شعب نبينا داعيها عليه الصلاة والسلام وضدك حق إلهي يقول يدي أمدي سنة دعوة دي مسؤولية دي بلغو سوريجي أمدن مسؤولية دي والدين إن الدين كشغيسو إن الدين سعتو إن الدين دمتو إن الدين قرقارتو ومسؤولية أمد النبي محمد صار عليه الصلاة والسلام كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلهي بقراك إنه وشاقي أمد لصوص صاروا أدونك الله كانوا أمد دوغو خير بدن بان نقطين با إلهي يري ومحان كنا قلني ذاتك الله ينوصو صار إنك رقا حدا إيا درتا إيا حولها إيا دايمانك إيا بدها وحا كجرينا كشغينو لينو مسو سارين waxa la inoo soo saaray dadka inaan ka shaqeyno dadku waxay ku hagaagayaan waa iimaan dadku waxay ku hagaagayaan waa diin waxa dadka dhisi karta waa diinta dadka dhisaysa ee dadku sidii ilaahay uga raali noqon lahaa ay u noqon lahaayeen ka dhigaysa waa diin marka ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka inay dhistaa ummadan adduunka loo keenay maxaa la inoo keenay adduunka dadka inaan dhisno dadku hadduu noo dhismaan horumar baan gaadhnay
haddii dadku ay naga dumaan oo dadnimadu hoos u dhacdo oo qiyamka bini aadamku ay hoos u dhacdo wax kasta hadday noo dhismaan ma horumarina ogaada horumarku ma hayna qallo waaweyn oo dhisano iyo maaragtaane warshado waaweyn oo samaysane horumarku waxa weeyaan waa dadka oon dhisno weeyaan dadka maxay ku dhismayaan marka dadka waxay ku dhismaan waa diin dadku waxay ku hagaagaan waa diin dadku waxay isku jeclaadaan waa diin dadku waxay isku qiimeeyaan waa diin dadku waxay isku xiriiriyaan waa diin dadka waxay isku haya isku keena waa diin jiingada iyo qoriga waxa isku qabta waa misbaar labada bulkeed waxa isku qabanaya waa shiminto weeyaan bini aadanka waxa isku keena waa diin waa iimaan innamal mu'minuuna ikhwadu waxay imanaysaa waa marka iimaan la helo weeyaan iimaan marka la helay ikhwadu imanaysaa hadduu iimaanku naaqusmo ikhwada islaamku ma imanayso ogow saadarteed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa wuxuu ka dhaadhiciyay laa fadla li'arabiyin ala ajamiyin illa bittaqwa ninka carabigu ninka ajamiga cadaan carabnimada ma wuxuu kaga fadli badan yahay waxa lagu kala fadli badan yahay buu rasuulku yiri waa alla ka cabsi weeyaan waxa lagu kala fadli badan yahay waa alla ka cabsi Umar bin Khattab radiyallahu anhu ayaa bawaabkiisa bawaab ma taqaana bawaab waaniga Umar irirdiisa taagan ee dadka ma aragtaan mar walba Umar u soo galinaya wuxuu kula dardaarmay oo uu ku yiri mar alliya markaad aragtid Bilal bin Rabah oo albaabka isa soo taagay ciiday doonay albaabka ha ii joogtay Bilal ii soo gali buu ku yiri Bilal bin Rabah ii soo galiya markuu Bilal soo galana Abu Bakar Umar intuu kacab u oran jiray sayidkaygii bay yimid Bilal bay yimid Bilal al-Habashi Bilal maxaa lagu qiimeeynaya waxa lagu qiimeeynaya waa diin nin walaalkii ajiri jira leeydi oo adoon ahaa oo isna markii dambe la xoreeyay gabadh buu markaa reer ka doonay waa Bilal walaalkii Bilalna uu madooba sideena uu madooba markaas walaalkiina nin saas oo buuxa laano xabashay ka soo jeeda marka gabadhii baa loo diiday ninkii walaalkii baa gabadhii loo diiday gabadha uu doonayna waa gabadh carbeed markaasuu ku yidhi horta aniga may taqaanaan ciddaan ahay maya bay ku yidhahdeen maxaa kaa naqaanaa Bilal ma maqasheen haddana haa Bilal waan maqalay mu'adinkii rasuulka qoyskuna markaa magaalada Madiina soo degay oo carbeed oo ku cusub ay haayeen wuxuu yidhi Bilal walaalkii baan ahay waxay ku yidhahdeen in xadara Bilaalun zawajnaaka bay ku yidhahdeen Bilal haddii meesha uu yimaado inanteeda waa ku guurinaynaa markaasuu u tegey Bilal baa yidhi Bilaalow gabadh baan reerkaa ka dalbay gabadhii in lay siiyo waa adaa laygu kaa xidhay ani waa la ii diiday laakiin Bilal hadduu ku soo raaca laygu yidhi markaa yidhi Bilal walaalkii baan ahay gabadha waa ku siinaynaa baa lagu yidhi ee walaal iraac markaasuu waa yahayna mari waysa soo raaceen aqalkii bay soo galeen Bilal baa yidhi ana Bilal bin Rabah Bilal kaad maqasheen mu'adhinkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ahaa waa aniga kani waa walaalkay buu waa walaalkay laakiin xagga diinta iyo tabiicadda kuma fiicna buu xagga diinta iyo tabiicadda run waa in la sheegaa moogtahay maaha qof waalan in gabadh in loo dhisaa maaha Soomaalidu hadday doonto mid waalan bay gabadh intay dhar fiican u geliyaan gabadh u dhisayaan hadhow tolana balaaya ka qarxay aqalkii marka runtu u sheegay wuxuu yiri diintiisa iyo dabeecadiisa labadaaba waa yar kuma fiicno haye laakiin wuxuu yiri anigu waa Bilal kaad maqasheen waa aniga haddaad gabadha laba addooma ayaan ahayn ilaahay baan na xoreeyay laba halowsan baan ahayn ilaahay baan na soo hadeeyay nabiga ku salliya yar fadhiiso adeer yar fadhiiso nasaamax adeer yar fadhiiso halkaa dhegeyso xadiiska waa nuuray horta adigu isku duub ha cadhoon haye insha Allah ku salliya rasuulka halkee soconay waa walaalkay laba waxaan ahayn buu yidhi addoomaha markii hore ilaahay baan na xoreeyey laba hallowsan baan ahayn ilaahay baan na soo hadeeyey haddaad inantiinana siisaanna waa alxamdu lilaah
haddaad noo diidaanna wuxuu yidhi allaahumma akbar buu ka yidhi allahumma weyn buu yidhi markaasay ku yidhaahdeen bilaal ba haddii meesha uu yimiday walaalkaa gabadha waan siinay ku yidhahdeen maxaa bilaal lagu qiimeeyo lagu qadariyey bal sheega ya maxaa lagu qadariyey maxaa lagu qiimeeyey diin baa lagu qiimeeyey laana zamankaas nebigu sala allahu calayhi wasalam ummadda waxa uu ka dhisay aragtidooda ayuu nebigu saxay saxaabadiisa aragtideenna qaladkaa maanta ma jirin berigaas aragtideenna maanta maxay arkaysaa hebelkan aqal buu leeyahay fiican kan beer wanaagsan buu leeyahay kan waa kii bakhaarka lahaa kan waa kii derajada lahaa may saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin waxaa lagu barbaariyey oo laga dhaadhiciyey ilaahay waxaa lagu kala dhow yahay alla ka cabsi inna akramakum cinda allaahi atqaakum kiina iniigu alla ka cabsiga badan leh unbaa ilaah agtiisa iniigu sharaf badan oo iniigu maamuus badan saa darteed buu nebigu ummadda waxa uu ka dhisay xagga iimaankuu ka dhisay xagga akhlaaqda wanaagsan buu ka dhisay xagga cibaadada ayuu ka dhisay xagga diinta ayuu ka dhisay xagga dabeecadda wanaagsan buu ka dhisay markaasaa mujtamacii madiina waxay noqdeen mujtamac isku qiimaynaya diin isku jecel diin isku qadarinaya diin isku qiimaynaya aynan dhexdooda oolin wax la yidhaha qabyaalad marka ummaddan ukhrijat linnaas ummaddan ilaahay waxa uu khayriyadeeda ku sheegay inay tahay ummad dadka inay ka shaqayso loo soo saaray maxaa dadka lagaga shaqaynayaa marka ta'muruuna bilmacruuf wanaaggaad faraysaan wa tanhawna cani ilmunkar xumahana waad ka reebaysaan wa tu'minuuna billaahi ilaahayna waad rumaynaysaan cumar bnu khadaab ayaa yidhi aayaddaa shardiga aayaddaa ninkii doonaya inuu ka mid noqdo ummadda lagu sheegay shardiga ilaahay aayaddaa ku sheegay ha buuxiyo buu yidhi shardiga lagu sheega waa maxay dadka lagu soo saaray inaad dadka ka shaqaysid inaad ummadda dhex socotid ummadda waxay ku hagaagaysa waa diin ummadda waxa ku hagaajinaya waa iimaanka ummadda waxa islaaxinaya waa akhlaaqda wanaagsan ummadda waxa isku jeclaanaysaa waa diin ummadda waxa dhisaya dadka dad ka dhigaya waa cilmiga waa inaad noqotaa qof ummadda khayrka la dhex socda oo khayrka ku beeraya markaad noqotaa ayaad adiguna ummadda khayrka badan labaad ku biiraysaa markaas waa ilaa haddii aad daaci noqon weydood ummadda khayrka ugu yeedhi weydo khayriyaddii meesha lagu sheegay buuhi cumar ma helaysid buu yidhi da inaan ummadda khayrka badan lee la ammaanay in ilaahay nagu daraa oo shaqadaa dacwadda u shaqaynaa ma wada niyooteen insha allah dhahada haddaad daaci noqon adaa daaci lagugu noqon haddaad dadka khayrka ugu yeedhin adigaa lagu yeedhi haddaad masaajidka camirin maqaayid iyo suuqaad camiri haddaad islaamnimada ku ficiltamin qabyaaladaad ku ficiltami haddaad dadka xagga ilaahay ugu yeedhin adigaa makhluuqa lagugu yeedhi meel dhexaad baan joogayaa ma jirto ima an takuuna daaciyan wa ima an takuuna madcuwan baa la yidhi imaa waa inaad ahaataa mid dadka ilaahay xaggiisa ugu yeedhaya haddaad noqoni weydi daacina adigaa lagu yeedhiyo ogow baatilkaa kuu yeedhi fasaadkaa kuu yeedhi qabyaaladdaa kuu yeedhi facebookgaa lagaaga yeedhi youtube-kaa lagaaga yeedhi aalaadka gacmaha aan ku sidanno oo dhan ee oday iyo islaan iyo inan iyo inanba ummaddii sidaa ugu wada jeedo dacwad maaha maa nool lahay ya dacwad baatil ay nagu dhacday maanta kii meel joogaba bahalkan uu haystaa ka dukaanka jooga bahalkan uu haystaa ka suuqa fadhiya bahalkan uu haystaa khayr waa ku jiraa inkiri mayno khayr baa ku jira laakiin khayr iyo sharkiisa midkee badan sharkiisaa badan marka zamankan fasaadkii halkaasuu marayaa maanta qima fasaad halkaasuu fasaadku marayaa maxaa ku badbaadinaya marka haddaad tidhahdo cibaadaan ku ekaan salaada unbaa tukan keliyo caabid baa noqon cibaado laguma badbaado dacwadda lagu badbaadaa dacwadda ummadda badbaadisa wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidulmin wa ahluhaa muslixuun ahl haddii qaryad walba magaalo walba dad dadka wanaajinaya dad dadka ilaahay xaggiisa ugu yeedhaya dad dadka islaaxooga ka shaqaynaya hadday joogaan qaryaddaa ilaahay wuxuu leeyahay halaagi mayna baa ilaahay yidhi acuudu billahi min ashaytaan alrajiim laakiin qaryad dadka ku nool wada cubbaad ay yihiin hadday joogaan wada cubbaad wada cibaado badan hal ninoo muslixoo daaciya uusan ku jirin cubbaadda iyo kuwa fisqiga samaynaya intaba waa la halaagiyo waa la isku duubi camalkooga iyo niyaddoodana aakhire la soo bixi doonaan buu rasuulku yidhi
ثم يبعثون على نياتهم نيادو دي لا soo baxayaan aakhiro malag baa loo soo diray qaryad oo la yiri aqlib qaryada dhanba qalib baa lagu yiri xagga kale u rog markaasuu malagii yiri ilaahu adoon caabido hebel hebel leeyda oo saalixa ayaa ku jire markaas ilaahay ku yiri isaga ka bilaab cadaabka xaqiisa dadka macsiyada sameynaya hal maalin wajigiisu kaba murugan baa lagu yiri caabid cibaado badan isaga ka bilaab sababtu waa maxay dadka macaasida sameynaya hal mar kaba murugoon marka waa inaan umada u naxariisanaa waa inaan dacwada u kacnaa waa inaan diinta ka shaqeynaa waa inaan maalkeena nafteena waqtigeena aan diinta ku bixinaa diintu waxay rabtaa bay culimadu leeyihiin shaqay rabtaa diintu waxay rabtaa shaqay rabtaa sida dukaanka looga shaqeyn bay rabtaa diinta in looga shaqeeyo sida beerta loo fali bay rabtaa diinta in loo falo sida xoolaha loo dhaqi bay rabtaa diintu in loo dhaqo sida tacliinta maadada aad u baran bay rabtaa diintu in loo barto diintu shaqay rabtaa shaqo fikir bay rabtaa dhaqaalay rabtaa waqti bay rabtaa cimrigaaga la rabaa diinta inaad ku bixiso wax lagu tabcana diin baa ugu khayr badan oo ogow adduunyada haddaad ku tacabto way kaa hadhi diinta haddaad ku tacabto wayna kaa hadhi wayna ku raaci wayna kaa hadhi abaa hurayra diin buu ku tabcay wayna raacday uu ku liibaanay wayna ka hadho ilaa qiyaamaha can abi hurayra baa la leeyahay maalka adaa ilaaliya cali bn abi aalib wuxuu odhan jiray maalka adaa ilaaliya laakiin cilmiga iyo diintu ayadaa ku ilaalin فعز المال يفنى عن قريب وعز العلم باق لا يزال رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فعز المال يفنى عن قريب وعز العلم باق لا يزال رضينا قسمة الجبار فينا علي بن أبي طالب أورنجري قسمة إلهي ونوقي بالرالي ما كنا قني أنا كان علمي با إلهي نسيي جهلتنا إلهي حوله بسيبي عزك حولها يا لعقتها يا مصبك الدنيا لغو هلو مرة ديرين هدي لعقتو كابا بعض عزقي وكاتقيا هدي دولة مالكو مقعودو maalinta booska laga qaado ciziga iyo karaamada dadku kugu imanayeen waa laga xayuubiyo waa laga la tagay laakiin ciziga lagu helo islaamnimada ciziga diinta lagu helo ciziga cilmiga lagu helo ciziga iimaanka lagu helo baaqi la yazal wa baaqi wayaan kama zulay ibn ali ibn abi talib lacagta adaa ilaalin diintu yada ku ilaalin cilmigu qofka uu ilaaliyaa marka tacab haddii aan tabcayno waxaa awlaaya inaan ku tacabno diinteena islaamka sidii nabigeenuba ugu tabcay sal alla alay wasalam kaana daa'ima alfikr mutawaasil alaxzaan laysat lahu raaxa bay yidhahdeen asxaabtu nebi maxamed daa'ima alfikri fikirkiisu daa'im buu ahaa mutawaasil alaxzaan murugta nebi maxamed ma kala go-ayn murug aan kala go-ayn buu nebigu lahaa laysat lahu raaxa nebi maxamed raaxa uma sugnaan baa la yidhi راحة أم سنان مرة حيسن مضى عهد النوم عائشة رضي الله عنها أيا كتري نبي الله صوصيحه وما ركتاني بسطها هوستي قال صوقل مرقاب النبي وكوري دعيني يا عائشة أتعبد ربي البارحة تعاوى ربي جاي همبري عائشة ما تسككي ديسدا مضى عهد النوم زمن كي هردد أنيق وإيقدم هذا زمن كي هرددي ربي جاي هنعبد عائشة ما iska kay dhaaftidaa buu nabigu ku yiri markaa bay ku tiri nabi allah waa hagaaga iska cibaadaysay ku tiri waa ku daayay dadna markaa buu nabigu calayhi salaatu wassalaam habeenkii markuu nabigu salaata leelkii u kacay salaadii fajr bilaal baa u yimiday bilaal ayaa u yimiday nabi maxamed oo ilinta ka daadatay garkiisa intay dhaaftay laabtiisa qoysay halku ku sujuudayeen la moodabiyay inay ku daateen وأيوه ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم عليه السلام مركز عائشة كتر لما تصنع هذا يا رسول الله النبي الله أوهنتن يسرجوك انت لك
maxaa naftaada ugu kallifaysaa adiga ilaahay dembigii horena waa kaa ilaaliyey kii horena waa lagaa dhaafay kii dambena waa lagaa ilaaliye markaa buu nebigu ku yidhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura miyaanan jeclayn caaisha inaan ahaadoo noqdo addoon shaakiroo rabbigii ku shukrinaya inaan noqdo soomahayn buu ku yidhi waa inaan noqdaa shaakir murugtiisu ma kala go'ayn raaxa nebi maxamed uma sugnaa fikirkiisuna joogtuu ahaa muxuu ka fikirayay nebigu khadiijo iyo maaragtaane caaisho iyo xaasaskiisa iyo ubadkiisa kama fikirayn waxau nebi maxamed ka fikiraya ummaddiisa min maaligii la soo saaray ilaa qiyaamaha dadka imanaya o dhan siday naar uga badbaadi lahayn buu nebigu ka fikirayo taa way dareenkaasi maanta murugtaasi mee fikirkaasi mee inaku maasha allah dhegaysigaad ku raaxaysanaysaan dacwaddu dhegaysi keliya maaha dacwaddu waa fikir dacwaddu waa murug dacwaddu waa tadxiyo dacwaddu waa raaxadoo laga tago dacwaddu waa maxay waa firaaqa almaxbuubaat waxa naftaadu ay jeceshaa ilaahay dartii uga teg saafir tajidu ciwadan caman tufaariquhu wansab faina ladiida alcayshi fi الnasabi inii ra'aytu rukuuda alma'i yufsiduhu in saaxa taaba wain lam yajri lam yatibi dacwaddu maahin dhegaysi keliya maaha oo miskiin la soo camiro dacwaddu waa dhaqaalahaaga bixi oo fikirkaaga bixi oo dhiiggaaga bixi oo dhididkaaga bixi oo raaxadaada hor oo waxaad haysato ilaahay dartii u bixi wax qaaliya ilaahay markaa kugu soo bedeli diintaa qaaliya ilaahay macrifadiisa ayaa qaaliya cilmiga ayaa qaaliya akhlaaqda wanaagsan baa qaaliya islaaxa ummadoo laga shaqeeya ayaa qaaliya hidaayadda ummadda ayaa qaaliya haddaad waxaad haysata diinta aad ku bixiso wax qaaliya ilaahay kugu soo bedeliyo ogu in sha allah dhahada yaa u diyaara waxa uu ugu jecel yahay inuu dar ilaahay u bixiyo lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun aayaddaa markay soo degtay khayr dhammaantii heli maysaan baa ilaahay yidhi ilaa xoolihiinna shayga aad ugu jacaylo badan tihiin aad ilaahay dartii u bixinaysaan ka hor abu talxa radia allaahu canhu buu ahaa saxaabigii nebiga u yimid ee yidhi yaa rasuul allah aayaddaabaa dushaada ku soo degtay xoolahaygana waxaan ugu jecelahay beerta la yidhahda magaceega bayruxaa beertaa meeshay ku taallay madiinata almunawara mustaqbilata almasjidka nebigay ku taallay agtiisa hadh macaan bay lahayd iyo biyo macaan salaadda markuu nebigu saxaabada uu tujiyena beertaa buu geli jiroo biyahaygana cabbi jiray hadhkayga macaana nebigu waa ku hadhaysanayey xoolihiisa ninkaasi wuxuu bixiyey shaygii ugu qiimo badnaa agtiisa innaga sadaqadda markaan dhiibayna intaan bixinaa inta ugu yar mise inta ugu badan sheeg inta ugu yar baan bixinaa limaada adaa khayrka naftaada kala bakheeliyo ogow infaaqa sadaqadda aad bixinaysid wuxuu tarjumaan ka yahay iimaankaagu miqdaarka uu taagan yahay saxaabiga abu talxana waxa uu bixiyey wuxuu tarjumayaa halka iimaankiisa uu joogay iyo macnaynaya uu macno ka bixinaya beertaa baan bixiyey buuhi waa beertaasina xoolahayga iyadaan ugu jecelahay buui baydhabo kuma taalla beertu sheekh waxay ku taalla madiinata almunawaray ku taallaa meeshay ku taallaa baydhabo janna ayaa tiraahdaa baydhabo kuma taallo madiinata almunawaray ku taalla xaram almadani agtiisa bal maanta xaramka madiinay ku dhex jirtaaba xaram almadina ay ku dhex jirtaaba beertaana cidda ku nasanaysee biyaheega cabbaysay waa ayo imaamu alambiya calayhi asalaatu wassalaam sayidu waladi aadam calayhi salaam ayaa marka masjidka salaada uu ka baxa intuu galo harkaygana fadhiisanaya biyaheega macaan cabbi jiray beertaa intay qiimo leedahay haddana ilaahay dartii bay u bixiyeen yaa leh waxaan xoolahayga ugu jecelahay een adduunyada ugu jecelahay inaan diintayda ku bixiyo ayaan diyaar u ahay ninkiilow bal gacanta taag iska fiiriya afmay maxaa iska fiiri isku ya isku fiirin isku fiirin iska fiiri waa isku midu maasha allah in sha allah dhahada marka mudaakiradii casarka ay noo bilaabantay waa bayaankan waa bayaankii u horreeyey bayaankii maqribka culimmada ay noo jeedin doonta marka aadaabtan masaajidkan ilaalinaynaa
aadaabta majliskan ilaalinayna masaajidkiinu waa masjid jaamica ijtimaaciyada caynkan oo kale mudaakaraadka daa'iman annagu waxaan ku qabanaa meelo magaalada ka baxsan laakiin masaajidka waa magaalada bartamaheegii dadkii magaalada oo dhan baa khayrka jecel oo ka soo qayb galaya laakiin aadaabtu waa muhiim masjidka aadaabtiisaan ilaalinaynaa waan ixtiraamaynaa waa kala dambaynaynaa isciriirini mayno isjiirjiiri mayno dadka reer baydhabana waxaan leenahay maadaama dadkii tuulooyinka ayaa yimid oo dusha sare degan inagu hoosta ayaa leedihiin baytalmayada iyo weysadana dusha jamaacadada tuulooyinka inooga yimiday ee duyuufta ayaan u daynaynaa inaguna xaafadaheena kusoo weyse qaadanaynaa soo diyaar ma nihin insha allah soo intaan maasha yaa sheekh dambigeenna allaha dhaaf dambiga waalidiinteenna allaha dhaaf dad badan oo walaalaheena ayaa duca dalbanaya maantadan shariifka khayr allaha siiye islaam baa dibadda kala soo hadasho oo tidhi majmaca ha layga soo duceeyo in ilaahay kurbada haysata ilaahay inuu ka qaado faatixada u mara horta iyada